إنا لله وإنا إليه راجعون دعدا حنون بدن أيا maanta ka dhacday Nairobi saameynna igu reebtay reer Islio adinka ayaa iiga xog ogaalsan oo dabcan dhinaca jooga ee inta aan anigu ka maqlay ayaa waxa ay tahay in ilmo yar oo 8 jir ah uu iska soo tuuray dabaqa inta la eg ee sida u dheer sababta ilmaha isku soo tuuray ayaa lagu sheegay in maalmihii la soo dhaafay uu ka sheeganayay cadaadis uu kala kulmayay iyo garaac uu kala kulmayay macalinkiisa dugsi quraanka iyo waliba in xitaa ardaydu ay ku maadeysanayaan taas oo si aad u dhibsaday ilmaha yar xilliga uu geeriyoonayo oo dhacdadu ay dhacaysay waxa la sheegay hooyadiis in ay ku maqnay dugsi quraan oo ay soo quraan saareysay aabaheed oo xanuunsan ilmaha yar aabaha dhalayna sidoo kale uusan wadanka joogin oo uu maqan yahay Allah u naxariisto laakiin mararka qaar waalidiinta waxa fiican in ay ka warqabaan xaaladda ilmaha ay ku sugan yihiin waxyaabaha ay dhibsanayaan ay si gaar ah u maqlaan iyo waliba in ay la socdaan xaalad waliba oo ilmahooda uu ku sugan yahay dhacdadan dad badan aad ay uga qaracmeen waliba waxa baraha bulshada lagu baahiyay sawirada ilmaha yar oo meydkiisa xagga hoose ee dabaqa u yaala maadaama dabaqa uu iska soo tuuray ilaa dhowr iyo 10 biyaano ku dhawaad 20 biyaanaba uu gaaray